السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada macaamiisheeda sharafta leh. maanta waxaan idiin haynaa laba guri oo iiba oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Badda Cas. labada guri waa min 3 maqsin iyo madbixii iyo suuligii ama laba suuli oo midna baadka yahay midna uu yahay suuliga public ah ee daaradda ku yaala. وكوا لبدا غورو كان برندهوغو ما شاء الله. سو دhowaada macaamiisheeda sharafta leh. halkan waa barandihii iyo gaari galkii waad aragtaan. soo dhowaada marmar baa barandaha kor loo raaciyo jiif iyo joogba. soo dhowaada macaamiisheeda sharafta leh. halka ugu sokaysa waa madbixii oo marmar leh oo super caleega oo kor iyo hoosba marmar la dhigay oo faalala ما شاء الله. soo dhowaada macaamiisheeda sharafta leh. maynu u noqon xagga qolalka. albaabadu waa albaabada Turkiya. qolkan oo kale waa qolkii hurdada. idinka arkay hurdada weyn baa taala. idinka arkay dusha baadkaygu waa gooni oo waa kan ka baadkaygu. macaamiisheeda sharafta leh, soo dhowaada. waa 3 qol oo gaara oo labada guri mid baa kaarikoona ah oo laba wajahadood bimacna leh. labada guriba Badda Cas bay ku yaalaan. cabirkana mid walba xaggiisa hore waa 13 mitir oo dhararka ah iyo 9 mitir oo ballaca iyo 9 mitir oo ballaca wajahada ah. macmiilkaygii soo dhowaada. qolalka kalena waa kuwa waan idin soo tusaynaa. qol walba waa inoo diyaar furayaasha. waa daarad yar oo dambe halkani oo biyo shuba oo foostada la dhigan karo oo majaroor la dhigan karo. soo dhowaada macaamiisheeda sharafta leh. albaabadu waa albaabada Turkiya. way idinka arkaya waa albaabada Turkiga. kan waa suuligii dhexe. albaabadu waa albaabadii Turkiga. way idinka arkaya kor iyo hoosba suuliga dhexe marmar baa yaala. soo dhowaada macaamiisheeda sharafta leh. وكا kana waa qol yar isaguna fadhi ahaan loogu tala galay oo daaqad leh oo fadhiga aad dhiganayso. fadhi weyn iyo fadhi yar wixii aad haysato. 3 qol waxay koonfur ka xigaan iskuulka Yaag Muslim ayay koonfur kaga beegayeen macmiilkaygii. markaynu deyrkii ku soo noqono deyrku gaari gal buu leeyahay. waa ku ka macmiil. soo dhowaada macaamiisheeda sharafta leh.